سجال كان مع المضافة إذا يسنو خير كأذكار التسبيح إذا سلق النبي عليه الصلاة والسلام من بدينه سي يعني أجر أهلنا مر ولي بن واجب بين قطع بسان كليا إن أرمها سميننا معها الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. قال الله تبارك وتعالى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إن أولا إله يا مهد إسكاله الله مالك تانية سنين تا ما أقول هذا إن دبا نصفر سنو حلقة نقول تقينين إله سيام هذه أولا نسقنات بعد الله تبارك وتعالى وحاربنا halkaan inaan ka hadalno sad maqleedeen ba aayadan soo qaadanay ayaa rabnaa in aan yaani dadka u jilcino una nuglayno marka ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu dhahay aayadu waa soo socotay laakiin intaana ka soo qaadan alladina yunfiquna fi sarra'i wad dharra wa kuwa wax bixiya xilliga barwaaqay ku jiraan oo ay wax heestaan oo ay godadkoodii wax ugu jiraan oo ay beerahoodii u barwaaqaysan yihiin oo xilliga wax bixiya macnaheedu marka magaalka u dhigana kuwa akoonyadooda wax ugu jira oo akoonka u xiran yahay oo isleeyihiin Allah ila sanadkan way ku fadhidaa xilli aad sidaa tihiin iyo wadarra xilli aad dhibaataysan tihiinoo wax la cunile heleynino xitaa jikadii lagu filnaa karino xilliyada lagu jira labada xilliyo kala duwan dadka wax bixiya iyo hadana ayadu waxay kale ka hadleedaa kuwa qariya caradooda ama dhirfkoogii hadana waxay kale ka sii hadli kuwa dadka cafiya kuwa dadka iska cafiya dambiga oo ka dhaco dartii macal shaahidka ayda soo qaata waxay tahay wal caafina 'anil naas kuwa dadka iska cafiya wallahu yuhibbul muhsinin bawaynu wuxuu jecel yahay kuwa muhsiniinta aayadan marka nin boqorada kamid adoomay ay u shaqeynaysay maalin maalmaha kamid ayadoo badar u soo wado aad u kulul sida maraqa oo kale oo aad u kulul yahay سأوصى وضي ويبعض يوم مرقي كلولا ومركا دبك لغا سوق هذي أي دوش وكشبتي يا لو غشبا يا نيكا بقر كاها يا كشبا يو أدوم يدي بكشبا يسا بقر وقتا سوما هو عروضي أدبو عروضي قفك بني آدم كان مروحة هدي اللي يرددك وسغلوية ددكو وسغلوية هاي marka waa gabadhi way la hadashay waxay ku tiri ilaahay soo ma maqlin aayada inuu ku dhahay wal kaadhimin al ghayz kuwa dhirifkoogii qarsada ama caradooda qarsada inuu ilaahay jecel yahay ma maqal miya bay ku tiri wuxuu ku yiri caradayda waa qarsaday yaani xanaaqsana waxa kululaad igu daadisay dibka halka iga soo gaadhay waan iska qarsaday buu yiri caradayada waayahay ku tiri oo ilaahay intuu dhahay ma maqlin miya wal caafina 'anil naasi dadka kuwa dadka cafiya buu ugu jecel yahay Allah jalla jalaalu waa ku cafiyay cafis baa iga tahay buu yiri caradayadana waa qarsaday haddana waa ku cafiyay cafis baa iga tahayo kuguma dhigniyo kuma heesi buu yiri hooshaad iska bado oo ilaahay inuu dhahay ma maqal miya wallahu yuhibbul muhsiniina kuwa muhsiniinta wax baxsada buu ilaahay jecel yahay ma maqlin miya waa ku xureeyay xurba tahay buu yiri Allahu akbar maanta adiga ni daawanay ma sameeyay heedarika xitaa adoomaydaad iska dhaafay canuga jirka ka soo gooyay adigu dhashay doo qalad kugu sameey ma cafiyeen maanta aayadan adoo ku soo qaadan laayo aayada la mid ahba maxaa u daliila ilmaha marka garaacaysa Allah dartii igu daa nabi Muhammad dartii igu daa waa ku sii wada bak leedahay marka ma laga yaabo Allah dartii nabi Muhammad dartii wax ka weey ma jiro may
aad ku dayn weyday aayad ma ku dayni may allihii aayada uu ku hadlayba magacii lagu qaadad ku dayn weydo oo ma laga yaabaa marka aayadina ku daydo may marka sidaa darteeda waxa la rabaa walaalayaal horta carada in la qarsado qofka ragnimada waxa loo yaqaanaa ninka ragga waa kii caradii qarsada waa kii isagoo aarsan karo argudsan karo wax lagu sameeyay wax la mid ah dadku sameey karo ama uu ka dheereen karaba caradiisa qarsada ka ayaa rag la yiraahdaayo hada carada inaan qarsano hadaanu ragnahno qof walba muslima marka maxaa la rabaa in caradiisa uu qarsado muslim dhan ala kulli muslimin wa muslima haweeney waliba muslimada iyo rag waliba muslim waxa laga rabaa inuu caradii qarsado sida boqorka inuu ku daydo aayada say u hadashay buu u raacay gabadhii say wax ugu sheegtay buu ugu fuliyay gabadhii haduu careysnaa rabo inuu dilo am inuu gadaba waxay noqotay mid xuriyadeeda heshay oo xuriyada la simaxay xuriyadeeda ku heshay dib ay sameysay dartii bay xuriyadeeda ku heshay Allahu akbar sida daraadeeda marka muxuu ku cafiyay inaa dambi galin ma jira isagu may dambiga baa igu sameeyay ceenka war Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu dhahayaa إنكم تقطعون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم ورنا دمو ورادينك وحاتين كوقفا قلت كدع هبين يومالين أنيقنا وحانا يمد ذنبي قدافا يويديستا أني ذنبي دافا إله سبحانه وتعالى يسيدا دهايا أنا قنا ما أنت قالت يرادي لنقول سمي سي كدع دي أريكا سي أريكا كدع دي ما بديعي كرتي ورواسي محل كل نقطة أريكا سواب محادو سمي دي hora waxa loo yiri nina walaalkii la dilay markaas Allah uga tagay waa laga qadar qaatay waxa la yiri warniyo sabar bal'uun waxaan way qorneedo arinka inuu dhaco way qorneede walaalka inay ku dhacdo isaguna way u qorneede bal'uun iska sabar hayo ku yiri marka waxa weeyaan marka hayo haduu dhaay sabarkii uu qaatay maxaa la rabaa khayrta maxay sameeyeen in la wada fariisto la wada hadlo labada jaanibo xuquuqdii iyo xaqii ninka uu dhintay la soo qaado Soomaha marka xaqii xuquuqda laga hadlayo wuxuu yiri war maxaa loo dilay warta hebel war hebel caynka baa loo dilay waa taa maanta oo dhan ka wada hadleynay waa taa kugu sameyn xirnay waa taa hada xalkiisa uu fadhinay bal naga daa haye marka baa wuxuu dhahay la gartay oo in la dilay oo hadan ha loo gowracay dilku loo kala saaray baa waa nin hogo garabkii ka baxay weeye marka sidaa darteeda waxa la rabaa qofka in yaani waxaan uu sameey karo og yahay lagu sameeyay inuu qarsado caradiisa waa inuu qariyo inuu isa soo bandhigo maaha ana boqor ana amiira ana madaxa ana wasiira ana xildhibaan caanka ma jirto war waxa la rabaa cida wax kugu sameeyay hadaan cafi karin waxa ma tihidba waxba ma tihidba nabiyullaahi maxamed ma ka fadli badan taadigu nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam wax walba lagu sameeyay isku cafi jir asal la tuuriyaynayo iligta laga jibiyo dhiiga ka daadanayo nabi ilaahay kuwan waxaan kugu sameeyay inkaar qabyaal weeyaan adna habaar kurid la dhahayo allahumma ighfir liqawmi fa innahum la ya'lamun bawrajiri allah u dambe dhaaf qoomka yaga ma og waxay igu dilaan igu garaacayaan bal u dambigooga dhaaf nabiga ma ka fadli badan ka khayr badan ka ajar badan adigu maxaa tahay ya marka waxa la rabaa Soomaalida anaga waxa waay ninkeen yarka xitaa waxa weeyaan dadka waxay dhahan dadka reer baadiyaha dadkan oo reer magaalka hilib geel bay cunaan hilibka geelu bay cunaan ayagu reer baadiyaha way dhaqdaan weeyaan ma cunaan mogt hadoo yaani baqtina xitaa inta toore ay qabsadaan ma gowracaan waayo Allah gacantooda ma qabataba Allah illa ma hibila lagu leeyahay magacay u leeyihiin marka waxa weeyaan wax walba wala cunaa ilmi yar ka xarga isfiilta hayso neerba hayso lagu dhaayo wuxuu sameynaadan milaysan karin nina had goor waxa la yiri meel lagu kulmayo waa la wada fariistay dad odayaala waxa lagu yiri waraade barniyo adig waliga station ma lagu geeyay station waliga ma lagu geeyay inta iday hayti oo dhaay iday banta hayti station la hayti ma marka gurigayga inta waxa buu yiri hadaan station la geeynin ba gaadiya station la yaqaan moogta meelaha anigu hadaan saldhigyadii marka ninkan waa meel uu yaani alla bari yar ka jirta lagu kulmo waa la wada sheekaystay isxaaq baa la oran jiray isagoo sida waliga station war la geeyay Allah markaas wuxuu dhahay iday banta hayti oo dhaay station la geeyay leeta iday inta yaani gurigayga inta waxa hadaan station la geeynin ba waa ku jiri jiray nin banaaga la aadsada ma bahanba station ka marway lagu xiri jiray waxbaan leeyna station ga liigeen jiray buu hiri marka yaa noqonina waliga ma carootay maxaa hooshayda hadaanan caroonayn yeesan noqonina waxa weeyaan bal waa hogaho halis qabto dadkana ilaahay wuxuu u jecel yahay kuwa cafiyaan bishaan waxaan ku jirnaa anaga bishii
aad u khayr badneed bishaan waa bil aad u khayr badan oo maxaa yeelay waa carafo maanta koo weeyaan is rajaynayo ها صح bishii 12aad koob maraysa 1447 oo hijriga ah dadka walaalaha qaarkood muslimiinta way sooman yihiin dadaas soomeen way jiraan oo ani ka mid ahay ma soomniyani marka waxa weeyaan insha Allah cudurna ma aanan uga tagin laakiin de waa waafaqi waaye shaki uun bas ka qabayo laakiin insha Allah biidnillahi alkareem bil barakeysan waa ku jirnaayo ay sacafino waxa weeyaan bisha sagaalka maalmood faa'iideysan khayrka adkaarta tasbiixda salliga nabiga kaleey salaatu wasalaam aan badino si yaani ajra u helno mar waliba waajib baynu ugu tahay bishan kaliya in arimaha sameeynana maaha marka ajirka la rabo in la shaqeysto mar waliba la rabo qofka inuu shaqeysto waa wax aakhiradiisa ku xiran tahay inay noqoto mooyaane wax adduunyo inay noqoto maaha dada waxa sameeyna quraan akhrinaa war quraanka maxaad u akhrinaysaa oo ducay ilaahay oo nagu irsaaq quraanka akhrina ilaahay oo fatax noogu fur ilaahay wiino waaxido waxa weeyaan xumaanta naga reeb ilaahay saan waa kan adduunyo ka hadlaya ilaahay oo raadi ahaasaha rabnaaya nasiiq qofdaha illa man rahima rabbi nabi muhammad aragtidiisa u baahannahay ya rabbi natus daddaha illa man rahima rabbi ma jiraan illa ma badno illa ku ilaahay naxariis mooyee waxa sameeysan waxa uu sameeynayna anaga waxa sameeysan waxa uu sameeynayna in yaani adduunyo ku helno maanta quraanka la akhrinayo shaqeyn oo taho oo ku shaqeysanayna war guriga baa loo soo hayay wax ma ka jira aye wala aadi war cunis kaliya la maro wahda sawaay telefoonka mashanqari uu shanqari waa WhatsApp kaalinta goowaada ku jiraabo marka waxa sameeynayna nimiyo ilaa aynu ka cabsano ilaahay dadkana iska cafino bil barakeysan waa ku jirna dadka bilowda way barakeysay laakiin si ku gooni ku qaar loo xusay weeyaan 4 bilood 3 sudun wa waahidun fard weeyaan 3 way xiriirsan taho midna waa gooni marka sidaa daraadeeda aan dadaalno juhdi dadaalkii hore u haynay aan ku sii darsano anaga binaadamana wax ma nahano maanta waxaan iska sameeynaa awood ilaahay la tartameena wax badan sameeyna salim maxaa minaa shahabo la qobood isku tagtay shahaadooda biyo qurna adoo ku dhibaa iska soo bixiso ilaahay kugu dhaliyay marka aad biyaas ilaahay wuxuu ku sameeyay maqaarkan quruxda badan leh lafahan uu ku sameeyay lugahan ay dhamaaneenino way daaleen la dhaayeenino ku sameeyeenino gacmaan buu ku sameeyo madaxan aragtidaan afkaan urintan waxan uu ku sameeyay asa ilaahay yaani ilaahay la tartamayo waxa lagu jiraa bal nimiyo aan dadaalno cafiskino aan badino in la iscafiyana waajib weeye cafiskuna wuu fiican yahay dadka walaalaha nagana aan cafino anigana aan iscafino bil barakeysan oo ku jirna dadkana wax aan gaarsiino wax wanaag aan gaarsiino xumaantana iska reebno wanaagana isfarno marka waxaan ka soo qatimayaa war ilaaha ka cabsano waxa bilowgeeda Allah ka baqna weeye dhamaadkeegina Allah ka cabsana weeye ilaaha ka cabsano aqulu qawli hada wa astaghfirullah